waxa ugu horeeya oo la ka rabo inaan shacabku qabanana waxay tahay inaan mas'uuliyadeena gudano. Mas'uuliyadeena gudashadeedana waxa ugu horeysa inaan amniga magaalada wax ka qabanno. waa garan karaa inaad 24 saac shaqaysaan ama gudoomiye degmo ha ahaado ama taliyayaal ha ahaadaano ama dhammaan mas'uuliyiin kale ha ahaadaano, laakiin inta weli dadka magaaladan ku nool oo ah magaaladii ahayd iftiinka ummadda Soomaaliyeed, magaaladii ka tusaaleynaysa qarannimada dalka Soomaaliyeed, inta weli laga baqaayo inuu qarax ka dhaco, inta weli hooyo Soomaaliyeed caruurtooda marka ay dirayso ay ka walwalayso inay soo nabad noqon doonaan, weli shaqadina la ka rabay maanan gudan. marka waxaa muhiim ah inaan fiirino maxaan haysanaa, tiro iyo tayo inaan u kala saarno. ma tiradaa nagu yar mise tayadaa nagu yar? ma maamulkaa nagu xun, ma wada shaqayntaa nagu liidata, mise aaminaadaa nagu yar, ma fahamkaa naga xun, ma jidkaan ka lunsannahay mise jihadaan ka lunsannahay? su'aalahaas waaweyn ayaa la rabaa inaad isweydiisaan, sababtoo ah idinka ummadda Soomaaliyeed mas'uul ah, gaar ahaan magaalada. waxaan aad idinkaga mahad celinayaa in aad kulligeen idinkoo gudoomiyaashii degmada iyo saldhigyada booliska taliyayaashooda, taliyihii guud iyo gudoomiyihii gobolka iyo ku-xigeenadiisii, inaad kulligiin ka wada shaqaynaysaan sugidda amniga idinkoo isticmaalaya qorshihiina cusub baad ula baxdeen darisaynta. laakiin darisayntu waa magac, shaqada iyo wada shaqayntu dad bay rabtaa inay ka shaqeeyaan. marar badanaa laga hadlay sidee baan shaqada hoos ugu daadejinaa, laakiin waxaa muhiima inaan horta fahamno cudurka nahaye waxa uu yahay inta aanan daawo raadsan. in marka caawa aad shirkan igu yeerteen oo aan idin dhegaysto oo aan maqlo waxyaabaha aad qabtaan ama dhibaatooyinka idin haysta, waa soo dhaweynayaa. marka koowaad horta waan fahamsanahay meel walboo la fiiriyo in dhaqaaluhu uu yahay furihii xalka ummadda Soomaaliyeed. keliya maaha magaalada Muqdisho, waxaan aaminsanahay dalkoo dhan si horumar loo gaarsiiyo in arrimaha dhaqaalaha waddanka wax laga qabto. siyaasadda dawladdeenu ay ku shaqayso oo hormuudka ka yahay madaxweynaheennu waxay ku salaysan tahay in arrimaha dhaqaalaha qaybo kala duwan wax looga qabto, in la kordhiyo dakhliga oo aan kordhinay sanadkii aan joognay hadda 3 bilood oo la soo dhaafay waxay ahayd 3 bilood oo ugu dhaqaale aruuska badnayd. macnaheedu ma aha laakiin in lagu qanci karo waa wax aad u yar. in inta khasaaraha ku baxaysa ama musuqmaasuqa ku baxaysa wax laga qabto, idinkaana ugu horeeya cidda wax ka qaban lahayd. in dadka masaakiimiinta ama dadka Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta shaqo loo abuuro, in bangiyadeena dib loo howlgeliyo si bangigeena dhexe u shaqeeyo, in shilin Soomaaligeena dib loo abaabulo, in dhaqaale ku sabaysan badeecad dibadda loo iibgeeyo si la isugu miisaamo inta dibadda laga keenayo inta dibadda la geenayo, in la kordhiyo wax soo saarka, inaan adduunyada dib ula falgalno si aan uga shaqeyno in hay-adaha caalamiga ee dunida dhaqaalaha ay dib noola falgalaan, inaan helno xal nolo kaga daayo in ka badan $5 bilyan oo dollar. shaqooyinkaasoo dhan inta aan ka qabanayno ma nasan karno, inta aan gaarayno inaan xal u helno shaqooyinkaas iyaga ah, dhibaatadan waan ku jiraynaa. ma aha keliya degmooyinka, si dalkan qarannimadiisu u soo noqoto waa inuu isku filnaansho gaara. isku filnaansho si uu u gaaro waa inuu tallaabooyin muhiima u maraa. waa soo dhaweynaa hadda meel fiican ay maraysaa, laakiin waqti ay qaadanaysaa in la adkaystaa loo baahan yahay.
laakiin waa in gudoomiyaha degmada iyo madaxweynuhu ay isku xiran yihiin inaan isla fahamsannahay hadafka noocaasa inaan isla fahamsannahay hadafka wax ka qabadka dhaqaalaha shaqo abuurka la dagaalanka musuqmaasuqa dib ula falgelidda hay'adaha dhaqaalaha adduunka wax soo saarka iibgeynta badeecada dhiirigelinta ganacsatada isku filnaansho inaan gaarno hadaf ah waa inuu ka dhaadhacsan yahay ummadda Soomaaliyeed waa hadaf weyn laakiin waa kan dhibka looga bixi karo waxaan ku wargelinayaa marka waa ognahay meesha dhibku naga hayo waxa kaloon sawirnay sida xalka lagu gaari lahaa waxaan qaadnay tallaabooyinka uga habboonaa muddo sanad ah waxaan qabanay shaqo u dhiganta 30 bilood laakiin maadaama dhibkan haysto aad u badan yahay ma u gegsan karna waqtiga waana fahamsanahay qof walba idin kamida waxa la rabaa marka inuu dareemo shaqada haysaan hadaadan qabanayna idinku ama qaabka u qabateen aadan u qaban lahaynina maan gaarneen meesha aan joogno eeg marka waa isku xiran yihiin in amniga wax laga qabto waxa u baahan tahay dhaqaale in siyaasad midaysan wax wadanka laga hirgeliyo oo ummadda Soomaaliyeed la isu keeno oo dastuurka la dhameystiro oo khayraadka lagu heshiiyo oo awood qaybsiga lagu heshiiyo oo doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo wadanka waxay u baahan tahay dhaqaale in ciidan dib loo dhiso sida aad aragteen madaxweynuhu ka shaqeeyo maalin walba waxay u baahan tahay dhaqaale in iskuulo la dhiso isbitaallo la dhiso jidad la dhiso buundooyin la dhiso dadka shaqo loo abuuro waxay u baahan tahay dhaqaale marka ugu dambaysa in kastoo aan leenahay amniga marka ugu dambaysa waxay tahay waxaad u ekaanaysaa waxa iska bixin karto marka ugu dambaysa waa inaad dib isugu noqotaa oo ka fikirtaa maxaa haysataa nasiib wanaag waxaan nahay wadan qani ah dhul fiican haysta barwaaqo ah laakiin waxaa naga xumaatay ismaamulida alxamdulillaah haddaan ku soconnaa marka dariiqii saxda ah waxa ugu wanaagsan marka wadan uu leeyahay waa dadkiisa annagu waxaan leenahay shacab Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo haddii iyaga la howlgeliyo dalkan wax ka tari kara haddii la howlgelin waayana dalkan khatar ku ah waa fahamsanna si marka ay taas u dhacdo waa inaan leenahay dawladnimo ay ka muuqato nidaam dadku ay ku qanci karaan dawladnimo ku salaysan isfaham isu talaasul isu dulqaadasho laakiin ku salaysan nidaam ku dhisan dawladnimo iyo kala dambeyn marka ugu dambaysa wadanka isbedel in laga sameeyo waa xanuun isbedelku sidiisaba waa dhib qof walba bini aadana way dhibaysaa inuu sameeyo isbedel qof walba bini aadana hatta gurigiisa marka uu degan yahay sariirtaada dhinac kale inaad ka seexato ku dhibaysaa adoo ka baqay inaanay hurdo ka soo dhacin isbedelku waa dhib laakiin annagu meesha aan taaganahay isbedel la'aan wadankan kuma jiri karo haddii kale waa qaraxyada aad aragteen waa shaabaaga muddadii gudoomiyaha gabadha ay sheegaysa waa shaqo la'aantii waa dhaqaalihii canshuurtii la qaadayo aad kulligiin leedahiin kuma filna ugu yaraan hadda waxaan nahay dawlad aruurisa canshuur oo sanad walba kor u kacda oo leh budget ama miisaaniyad la aqoonsan yahay oo baarlamaan la marsiiyo oo leh maamul dhaqaale oo adduunyadu hadda aaminsan tahay inuu hore u socdo laakiin u baahan tallaabooyin ka sii muhiimsan in la qaado marka inaan aqbalno waaye inaan ku shaqeyno wax aan hayno hadda laakiin aan ka heshiino kulligeen maxaa ahmiyadda ugu muhiimsan noole
annaga waxaan nahay madaxda qaranka kulligan idinku waxaad mas'uul ka tihiin gobolka Banaadir iyo degmooyinkiisa haddii gobolka Banaadir marka degmada iyo gobolka iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo hay'adaha kale amniga iyo madaxda qaranku ay wada shaqeeyaan leeyihiin mas'uuliyad qaybsan leeyihiin kala dambeyn iyo meel isugu soo hagaago leeyihiin dhaqaalaha yaroon leenahay in loo qoondeeyay si dhab ah laakiin aan lagu tagrifalin aan ka hormarino danta guud mar walba danta gaarka ah aan howlgelino dadkeena kuwa degmada ka shaqeeya kuwa aan ka shaqeynba ay shacabku dareemaan inay booliisku ku soo ordaan aanay ka ordin aan soo gaarno dhaqan ah hooyada iyo aabbaha iyo gabadha iyo wiilka jidka maraayo ay dareemaan inay ku soo ordaan booliiska meesha hadda ay walwal ka qabaan oo xaqiiq ay ku soo ordaan nabad sugidda oo la yiraahdo waa gacan qafiif ay leeyihiin sida hadda la yiri waxay leeyihiin gacan adag muhiimaddu waxa ay tahay ciidanku waa kii lagu soo orday waa kii lagu soo hiranay waa astaanta qaranka shaqo wanaagsan ayayna hayaan naftooda ayayna u hibeeyaan dalka laakiin waa in la isu soo dhaweeyaa shacabka shaqada ugu horeeya laga rabo booliiska iyo nabad sugidda iyo qolo walba ciidana waxay tahay inay kasbadaan kalsoonida shacabka ee u adeegayaan haddii cidda aad u adeegaysa aanay kugu kalsoonayn waa hubaal inaadan qabanayn shaqo najaxda inay isu sheegtaan waa muhiim haddii laga aaminsan yahay inaad ku dhex jirto musuqmaasuq ama gudoomiye degmo ah ama booliis ah ama ra'iisul wasaare ah waa hubaal inaadan ku najaxayn haddii laga aaminsan yahay inaad ka shaqeyso qabyaalad iyo ninjeclaysi waa la hubaa inaadan najaxayn marka waxaan u baahannahay dad Soomaaliyeed oo yiraahda 28 sano la soo dhaafaa dib noogu filan sanadkan soo socda waxaan aqbalaynaa inaan u dhaqano sida hore si ka duwan sanadkan soo socda waxaan iska daynaynaa qabyaaladii waxaan iska daynaynaa laalaabka waxaan iska daynaynaa ninjeclaysiga waxaan iska daynaynaa cabsida sanadkan soo socda waxaan isku dayaynaa inaan ummadda Soomaaliyeed ugu adeegno sida hore si ka duwan hadda idinkaa jooga degmooyinka gobolka Banaadir idinkaa jooga booliska annagaa joognaa xafiisyada dawladda annagaa nala sheegayaa maxaad soo qabateen haddii aad u shaqaynaysaan inaad ka cabsataan inaad wax bedeshaan xal ma imaan doono haddii wali laga baqaayo in dhulkii dawladda aad ku shaqaysaan sababtoo ah siyaasad ayaa dhib keenaysa xal keeni maysaan haddii gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu soo celi karin dhulka dawladda haddii dhulka dawladda oo lagu shaqeynayo aad uga baqaysaan siyaasad dalkan meel geen maysaan haddii aadan ilaalin karin hantida ummadda haddii saldhigii booliska aanu haysan dhul uu ku shaqeeyo shacabna uu iska haysto idinkuna aad haysataan awoodi baanaad isu sheegaysaan gudoomiye walba oo degmo shaqada ugu horeeya laga rabo waa inay tahay inuu ilaaliyo hantida degmadaas siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu qoraal warqad ku soo qoray waxay tahay inaan dhul la bixin karin inaan lagu fari karin dhulka ummadda Soomaaliyeed marka uu madaxweynuhu wareegtada soo saaro waxay tahay macnaheedu in idinka la idinka rabo inaad sugtaan wareegtadaas inay dhaqan gasho ummadda Soomaaliyeed idinka idin kula xisaabtamaysaa ilaahayna idinku idin kula xisaabtamaya laaluushka laalaabka musuqmaasuqa qabyaaladda ninjeclaysiga waddanka in laga ilaaliyo waay marka dalku hagaago qof walba Soomaaliyeed noloshiisu way hagaagaysaa
haddii laakiin qof walbo Soomaaliyeed u soo shaqo tago dalkan maxaan ka helaa qofina aanu u soo kicin saaka dalka maxaan ku taraa wax xisaab naaqusa wax xisaab ay wax ka dhiman tahay waxa la isku haystaa marka waxay tahay sida horan ku jirnaa ama isbedel baan sameeynaa haddii qof walbo Soomaaliyeed oo xukunka loo dhiibo uu isku dayo isagu inuu wax ka raadiyo intuu dadka wax u raadin lahaa waligaan meesheenayaan joogeynaa waa dhab waa in la isku qiyaasaa qof walba waxa uu galay waa inay jirtaa mas'uuliyad ah degmo hebel iyo degmo hebel haddii amni darra ay ka dhacdo waa in qof hebel iyo qof hebel loo soo xiri karo maxaa waxaanoo jenaraalaha u joogaan haddii qaraxay dhacayaan maxaanu leenahay intaasoo gudoomiye degmo haddaan la ogeyn waxa dhacaya waa in gudoomiyaha degmadu uu abaal mariyaa gudoomiyaha gobolka Banaadir uu abaal mariyaa degmadii gudoomiyihiisu uu ku guuleysto shaqo wanaag hufnaan karti waa in taliyaha boolisku uu abaal mariyaa taliyihii ku guuleysta inuu meesha uu ka shaqeynayo qarax ka ilaaliyo waa in la soo xiraa kuwa laaluushka qaata kuwa musuqmaasuqa sameeya kuwa dhulka dawladda dhaca madaxnimada macnaheedu waxa ay tahay waa inaad maya iyo haa dhihi kartid waa inaad go'aan adag gaari kartid waa inaadan kursigaada ilaashan waa inaad dalka khatar u gali kartid xataa haday kalifayso inaad kursigaada ku weysid madaxnimadu waa qor isu dhiib meel inaad geysid waay qofka kale uu ka sii qaado haddii marka ramadaan walba la soo gaaro aan isu nimaadno aan ka cabsano qaraxa ramadaanku marka uu baxana aan sidaana ku noqono annagay wax naga sheegaysaa ayaa cidda ana waxaan aaminsanahay marka inay muhiim tahay in haddii cid kale idinka maqantaana aad ku soo darsataan laakiin shacabka magaalada Muqdisho waa dad fiican oo sharaf leh oo karaamo leh waa dad jecel dawladnimada waa dad canshuurta bixiya waa dad nagala shaqeeya si aan adduunyada dib ugu soo laaban lahayn waa run ma helaan adeegyada ay u baahnaayeen marka laga qiyaaso inta ay dawladnimada ku taraan laakiin shacabka reer Banaadir waxa saaran mas'uuliyad dheeraad ah maadaama ay degan yihiin magaalo madaxda qaranka oo ah astaantii ummadda iyo qarannimada waxa laga rabaa gacan ka dheer dadka kale dulqaad martigelin waxaa looga baahan yahay inay aqbalaan waxa ay xambaarsan tahay inay hoy ku leedahay magaalo madaxda qaranka oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay wada leeyihiin waa in marka isu imaatinkiinu uu miro dhal leeyahay waa inaad samaysataan qorshe hufan dhammaystiran isu dheelitiran ku sabalaysan xaqiiq iyo mas'uuliyad wadareed ku dhisan kala dambeyn cid waliba uu og yahay shaqada uu leeyahay iyo marka ugu dambayso qofka iska leh go'aanka ugu dambeeya waa muhiim in nolosha iyo nafta ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan ku dhaqan aad ilaalisaan waan taliyaha boolisku og yahay in taliyaasha degmooyinka aanay intay baawur iyo qoryo iska qaadan aanay xabado iska ridin waa in maxkamad warqad markay idin soo qorto oo wax fulinaysaan aadan meel iska taginina dadka iska xabadaynina waa inaad baari samaysaan marka hore xagee baan u soconnaa khatar noocay ay leedahay gudoomiyaha degmada muxuu leeyahay sidee baa lagu galaa ummadda Soomaaliyeed naftoodu qiimo ay leedahay booliisow
ummadan Soomaaliyeed dhiigeedu qiimo weyn oo noogu fadhiya amniga inta aadan sugin ka hor waa inaad tiraa khatar miyaan keenaya waa muhiim in la isla xisaabtamo taliya waa muhiim inaan aqbalno sidii hore si ka duwan inaan u shaqeyno waa in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu la xisaabtamaa gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinkuna ay la xisaabtamaan kuwa ka hooseeya ilaa laamaha waa muhiim taliyuhu inuu la xisaabtamo dadka askarta ka hooseysa waa muhiim madaxweynuhu inuu ila xisaabtamo sidoo aniga ila xisaabtamo anna aan wasiiradeedu la xisaabtamo isla xisaabtan dhab ah waa muhiim dawladnimada in la soo daadajiyo ilaa laanta degmada laga gaarayo waxaan marka rajaynayaa in annaguna anteena ka soo bixi doono wixii aad nooga baahataan aad soo marsiinsataan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliska laakiin waxaan la aqbali karin in mar walba magaaladan qarax uu ka dhaco sidoo idinku wargeliyay madaxweynaha markuu idin yeeray mayaan dhaweed waa in la isla xisaabtamaa meel walba ciidan baa taagan meel walba askar baa joogta meel walba degma ku taala gudoomiyaha jooga maamul baa jira waa inaan ognahay meesha dhib ku yaalo haddii aan ogaano meesha dhib ku yaalana waa inaan ognahay cidda mas'uulka ah cidi waa inay mas'uuliyad qaadaa markii dhib dhaco waa in cid lala xisaabtama taliyaha iyo gudoomiyaha waxaan ka codsanayaa inay idinla shaqeeyaan idin caawiyaan laakiin idinla xisaabtamaan sida iyagaba annagu aan idinla xisaabtami doono idinkana kuwa idinka hooseeya waa inaad la xisaabtantaan ugu dambeyntii waxaa naloo dhiibay annaga waa ammaanada ummadda Soomaaliyeed haddaad saldhig boolis joogtid haddaad gobolka joogtid haddaad dekada ka shaqaysid haddaad wasaarad ka shaqaysid haddaad gobolka Banaadir joogtid oo waaxda dhulka ka shaqaysid ammaanada ummadda Soomaaliyeed waa in la ilaaliyaa sida kaliya oo shacabka ummadda Soomaaliyeed nagu aamini karaan waxay tahay inaan dareensiino inaan leenahay ammaano xoolahooda nagu aamini karaan markaas ay canshuurta kordhaysaa markaas amnigu wax laga qaban karaa laakiin haddii nala ka aaminsan yahay inaan nala aamini karin waxa ogaataan aan weligeena meesha joogeen marka ugu dambaysa mas'uuliyaddu ma ahan kaliya in shaqadaada aad ku sinaato mas'uuliyaddu waxay tahay haddii aad ogtahay qof qalad sameynaya taliya laaluush qaadanaya wasiir laalaab ku jira dhul la boobayo wax walba oo khalada oo aad ogtahay oo aad qariso macnaheedu waxay tahay inaad taakuleynaysid qof ka shaqeynaya baabiinta qarannimada Soomaaliyeed dhaqankii wanaagsanaa ee dawladnimada waa in la soo celiyo sida kaliya oo lagu dhisi karo waa in meesha ugu hooseysa laga soo bilaabo marka waa nasiib wanaag inaan caawa u helnay fursad inaan aragno gudoomiyaasha degmooyinka maalin dhoweed waxaa la kulanteen madaxweynaha wuxuu idin sheegay inuusan ku qanacsanayn amni darrada magaalada soo sidaas ma waxaan idinkugu soo celinayaa in fariinta madaxweynaha idin soo gaarsiiyey idinkoo ku mahadsan shaqada ilaa hadda aad soo qabateen ee tan aad qaban doontaan in fariintii meesheeda ay tahay laga bilaabo maanta waxaan idinka codsanayaa in amniga magaaladan sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto wixii aad nooga baahantaanna aad soo weydiisataan
laga bilaabo maanta waxaan codsanayaa in shaqadiina isla xisaabtan ay ku salaysnaado laga bilaabo maanta haddii ciidanka kula shaqeeyo mid kamida uu khalad sameeyo ama laalaab sameeyo fadlan shaqada ka ceyri haddii gudoomiyaashaada qaarkood ay shaqadaada ka soo bixi waayaan fadlan shaqada ka ceyri haddii iyagu ay shaqadooda ka soo bixi waayaan fadlan noo soo sheega maalin dambe lagama lumi karto waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum.